anigu markaan meeshii imanay 5,000 ilaa 7,000 baa hal jeel ku xidhnayd oo harimacadkii drug la xiriir ma isleedahay door ay dawladdu ku leedahay in la ururiyo codadka Soomaalida ee kala duwan oo stands kumida laga qaato qadiyadaha waaweyn waxyaaba domestic aan lagu kala duwanaadeen caadi tahay walaan hadaad soo qaato xukuumadda oo kale de waxa mucaaradka laftiisa ururka on laftiisa ayaa wasiirro kule heer gobolada arto way ku leeyihiin heer degmo way ku leeyihiin maamul magaalooyinka ku leeyihiin marka intii aad ogoleedeen baad wada taanbalay waxa de qofaan ku ogoleen ma wadan kartid waa dalka laftiisu hadda miisaaniyad baan nagu helnaa dawladda Soomaaliya miisaaniyad bay heshaa de miisaaniyadaasi waa miisaaniyad wadanka laga soo ururiyo oo khayraadka wadanka khayraadka dabiiciga wadanka qaar badan dakhli laga dhaliyay baa inaga leen isiyaa marka maanta hadii inagana shida la soo saaro oo 50% deegaanka lagu soo celiyo 50 dalka lagu celiyo si uu ugu qaybiyo intii kale sida inaguba khayraadkii dalka laga soo ururiyay deegaanada kale inaga la inoo soo gaarsiinayo wax dhibaato ah oo ku jaban malaha isleeyahay in culays uu yimaado in dhalinyaradeenna ay door bidayaan shaqooyinka deegaanka oo hay'ad walba hay'adda horumarinta kuwa adeeg kaliya ma hay'adaha amniga aniga kula hadlay 40 baan tan kaxeeyay Air Force-ga xarunta Air Force-ga ciidamada cirka Itoobiya geeyay oo piloto iyo engineero iyo technicians inay noqdaan u geeyay hal wiil baa ku haray Salaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada xalqad kale oo kamid ah taxanaheena Buundo xalqadan waxaan kula sheekaysan doonaa Dr. Xuseen Qaasim Dr. Xuseen waa wasiirka madaxtooyada ee dawladda deegaanka Soomaalida wuxuu hore u soo ahaa hogaankii nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen waxaan kala sheekaysan doonaa xaaladaha dhaqan dhaqaale ee deegaanka Soomaalida aad baan kaaga mahad celinayaa marka hore waqtigaaga marka labaad ku soo dhaw Buundo aad baad mahadsantahay maxamed maadaama aad fursad siisay inaan ka hadlo xaaladda dadkeena iyo deegaankeena aad baad mahadsantahay Dr. Xuseen first things first xagga hore inuu ku soo bilaabeynaa adigu shakhsiyan intii hore waxaad aan kugu aqaanay dadka badankiisana kugu yaqaaneen oo muddo dheer ku dhex jirtay international development peace building state building waxaad la shaqayn jirtay organizations waaweyn oo caalamiya qaarkoodna abad soo maamushay sida sanduuqa xasilinta stability fund haddana aad siyaasadda u soo wareegto siyaasadda aad ku jirto maxaad leedahay waa aad ka soo baratay xirfadaadii shaqo ee organizationska kale oo maanta way ku taageerayaan inaad isbedel macnale ka samayso masraxa siyaasadda ee deegaankeena waa mahadsantahay maxamed horta waa midoo in loo shaqeeyo dawladda kuma cusbi oo shaqada u horeysa waxaan ka bilaabay ahayd dawladda deegaanka Soomaalida xilli saad sheegtay laga joogo rubuc qarni laga joogo almost 5 sano ku dhawaad xafiisyo kala duwan baan ka soo shaqeeyay intii dambana waa runo xaggan international development iyo arrimahan dawladiski iyo nabadiski yaan u badnaa iyo maamulka wax la xidhiidha way arnimada laga helayo in meelo kala duwan hay'ado kala duwan oo nabadiski iyo horumarka iyo dawladiski iyo ka shaqeeya waxa weeye waxa ugu muhiimsan waa exposure-ka yani in dhaqanno kala duwan iyo dabeecado wadan oo kala duwan xaaladda dhaqan dhaqaale oo mataqaana kala duwan Kenya markaan joogay arrimaha Soomaalida kale aan ka shaqeynay horumarka iyo dawladiska ku saabsanaa markaan joognay Canada oo akademiyada iyo waxyaabahan theory ahaan laga shaqeynay Mareykan markaan joogay si guudba waxaad ka helaysaa marka la soo duubo fursadda loo helay in aad dad kala duwan iyo dhaqanno kala duwan iyo marxalado kala duwan oo ku saabsan horumarka iyo nabadeynta iyo inaad ka shaqeyso waxaad ka helaysaa waayo-aragnimo waayo-aragnimadaas mararka qaarkoodna way ku anfici oo xaaladda dhaqan dhaqaale ama duruufaha Soomaalida marka la eego si guud wax u dhadhow bay noqonayaan mararka qaarkoodna waxyaabo aan meelo aan isku duruuf ahayn
ay noqonayaan waxa laga yaabaa in wixii aad xoogaal ku ahayd oo arag ku ahayd inaynan ma taqaanay applicable ku ahayd markaas laakiin si guud waxaan isleeyahay waa un wax wanaagsan qofku inuu fursad u helo inuu meelo soo marmaro oo Soomaalidu waxay ku mahmahdaa inaan dhul marin dhaayama leh marka waxaan isleeyahay waa iyadoo ay jiraan dad way arag inta ka badan leh dee 20 sano 25 sano laga hadlayaa 30 sano 40 sano 50 sano shaqo dawladeed iyo dawladdiisii ku soo jiray oo dee xilal kala duwan kuwan ka weyn soo qabtay oo ay laga faa'iideysto laakiin waxaan isleeyahay markasta waxaa mudan in shacabka lagu noqdo oo deegaankaaga loo shaqeeyo waa wax weyn baan isleeyahay dadkaaga wax ku celiso maxay isleedahay doctor waarignimada iyo exposure-ka iyo fursadaha shaqo ee heer deegaan iyo heer caalamka noqday maxaad isleedahay xirfadda ugu weyn ama waarignimada ugu weyn ee gaar ahaan aad isleedahay wax kuu diyaarisay inaad contribution fiican bulshada aad ku celin karto maxaad isleedahay way noqon kartaa wallahi waxaan isleeyahay fahanka ah dabeecadda Soomaalida oo in loo adeego bulshada Soomaaliyeed waa wax u baahan fahan gooni ah waa dad badan oo ka soo shaqeeyay sida ay fahansan yihiin waa marxalad si guud marka la yiraahdo caatifad badan ay ku jirto isdabagur badan leh waqti badan aan la isiinaynin oo hogaaminta iyo dadka u shaqeeya aan fursad badan la siinaynin xoga badan oo ku baxsan Soomaalida oo si guud marka la eego isugu jira wax ka jiraan iyo wax ka jirin qofka Soomaaliga u adeegaya bulsho sharaf leh oo mudan in loo adeego laakiin jawi noocaas ayuu qofku ku talagalaya inuu ka shaqeynayo taasaad jeer gurbaysa xagisha badan iyo waxay u baahan tahay dulqaad badan iyo waxyaabo badan in la xiriyo waxyaabo badan la isu miisaamo go'aanka habka loo qaadanayo in xoga badan oo mataqaanay hoos loo eego ay jirayaan oo waxyaabo badan la iska xaqiijinayo oo caatifadaha badan ay qofka inay saameeyeen ay muhiim noqonayso marka duruufo noocaas qofka Soomaaliga markasta joogo waxaan isleeyahay ama ku shaqeynaya doctor emotional intelligence muhiimad intee leeg buu ka leeyahay hogaaminta siyaasadda intee leeg bay muhiim tahay qofka xil iyo mas'uuliyad siyaasadeed hayaa inuu emotionally intelligent noqdo ama in emotional intelligence in general muhiimad noocee ka leedahay power corridorska wallahi horta qofka bulshadu adeegay inuu cabiri karo oo caatifadahooda iyo rajooyinkooda iyo waxyaabaha higsanayaan iyo dhibaatooyinka hadda ka hor soo mareen iyo waxyaabaha ka filayaan qofka mas'uulka inuu qofku u fiirsado waa laga marmaan qofka dee meel xil haya xil umadeed haya taan eegna deegaanka Soomaalida oo kale dad dhaawacyo badan ay soo gaareen dhibaatooyin badan oo xasuuq lagu tilmaami karo ay soo gaareen dhaawacyo badan oo dhan walbaba ah dhan dhaqaale dhan diin dhan dhaqan dhan nidaamka dawliga ah ay soo gaareen durbadan qanaya rajo qaba badan in wax hagaagana de waxay u baahan tahay in marka la isu miisaamo rajadaas wixii xaqiiqi la qaban karo iyo dadaalkeedu dheeri ah dadaalka caadiga ah mid aan hayn oo dheeri ah laba jibaari saddex jibaari 10 jibaar yaa loo baahanaya in la sameeyo si dadku durba ay soo kabtaan marka geedi socodkaas kabashadu yaa u baahan in dadkii loo sheego waxaan isleeyahay marar badan waxay wax ku hagaagi karaan in la yiraahdo dadku la qiro in dhibaatooyinkaas oo dhan la soo maray waxyaabaha
la hiigsanaya ee mustaqbalka ah ay tahay in dee hogaamintu ay keento iyo isbeddelku uu keeno loo iftiimiyo lala xidhiidho loo sharaxo meeshaas sidii lagu gaari lahaana aragtidaas iyo isbeddelkaas wanaagsan ee loo bildhaaminayo dadkana sidii loo gaari lahaana la sharaxo lafteeda oo la sharaxo in wuxuusan aan sanad iyo 2 iyo 5 iyo waxa lagu dhameeyay aan lagu bedeli karin laakiin maalinba tallaabo la qaadayo marka tallaabooyinkaasiba ay aakhirka ay ina gaarsiin doonaan meesha aan rabno laakiin waxa iyaduna ay muhiim tahay inay barbar socdaan in dee maalin walba isbeddel la arko oo sanadkan jigjiga inta lagu arkay sanad ka dambeeya wax ka bedelan lagu arko ka sii weyn ka sii dambeeya wax ka sii weyn lagu arko marka waxaan is leeyahay markaasay iskabayaan wixii hogaamintu ay sheegaysay iyo dadka xilka u haya Soomaalida in la sharaxo meesha loo socdo oo ummadii loo bandhigo in la sharaxo sida lagu gaari halkaas iyo in tallaabooyin cad iyo natiijooyin cad oo muujinaya in labada qodobba ay wax ka jiraan meesha la gaari iyo sida loo gaariyaba in ay dadku arkaan dayna arag dadku rajadii bay ya mataqaana meesha ka baxaysa waxa meesha ka baxay aaminaadii shacabku ay ku qabeen dadka xilka haya iyo hoggaanka ayaa meesha ka baxaysa marka waxaan isleeyahay waxyaabaha noo saamaxay deegaan ahaan hadda in shacabku ay kalsooni nasiyaan waa taasaan isleeyahay marka emotional intelligence waa crucial in this process particularly marka lala macaamilayo ama bulshada la hogaaminayo ay tahay bulsho ku jirta transitional justice oo wallahi waa waxa u baahan in u fiirsasho iyo cabiraad dhab ah oo qofku uu ka leeyahay xaaladda iyo dareenka shacabka iyo duruufahooda oo marba u baahan in si tartiib ah laysula koro laysula janqaado laysula socdo marka dareenkaas iyo dhugashadaas iyo fahamkaas waxaan isleeyahay xikmad kama maarmayo halka waxaa iga soo baxaya doctor in bulshooyinka sidoo kale nugul yihiin ay ugu kala baahi badan yihiin hogaamintu inay hogaamin dareen dhugasho weyn la tahay isbeddel weyn baa ka dhacay Ethiopia rejiimkii hore markuu tagay prime minister Abiy baa yimid Ethiopia isbeddelo heer federaal heer wadana baa dhacay oo major ah jiha kale qaaday Ethiopia taatu lamida deegaankana ka dhacday oo nidaamkii hore maaragtay idinka horreeyay isbeddel dhammaystiran oo tan iyo celiba baa dhacay idinkaa yimiday xilka dadku markaa waxay dadku badankoogu arkayeen waa beri waa san oo dhashay iyo ma aragtay rajo bilaaxada oo ummaddu aragtay isbeddelka promisekiisi ballantii iyo rajadii dadku lahaayeen idinku hogaamin ahaan intii aad ballanqaadeen qabashadiisa iyo dadka rajadii ay qabeen filashadii dadka iyo idinka ballanqaadkiinii 7 sano hadda soo dhaaftay kadib maxaad ku macnayn lahayd والله waxaan ku macnayn lahaa horta marka wax la cabirayo waxa fiican in la sheego meesha laga qiyaas qaadanayo marka laga qiyaas qaato dhanka siyaasad ku salaysan Soomaalinimo oo siyaasiyiintu ay ku midaysan yihiin aragti ah in dadkani ay nafsi bax u baahan yihiin oo dhibaatooyin badan oo qarni ku dhadhow ay soo mareen ay u baahan yihiin in siyaasadooda la dejiyo laguna dejin karo in aragti midaysan oo Soomaaliyeed la yeesho oo ah in siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa lagu dhisayo nidaamka dawliga loo wada dhannaado marka waxaan isleeyahay dhanka marka laga cabiro wax weyn baa la qabtay meesha waxa ka jira hogaamin iyo nidaam iyo xisbi leh aragti midaysan oo Soomaaliyeed oo dadkaas qarniga waxay ku soo jireen ay kaga soo kabanayaan oo aragti dheer ah oo markay noqoto in siyaasadda la xasiliyo isbeddeladii iyo buuqii iyo xasiloon darridii siyaasadda ka jirtay meesha laga saaro wax weyn baa laga qabtay
marka la eego amniga marka laga cabirana inay deegaanka Soomaalidu maanta uu noqdo deegaanka ugu nabdoon dalka iyo geeska meel lagu soo hiirinayo oo qofku cidhif ilaa cidhif amnigiisa si buuxda uu kalsoon yahay wax dhibaato soo gaarin oo maal gashanayo oo booqanayo oo uu marayo oo ku dalxiisayo oo uu muraadkiisa qofka qabsanayo oo ku seexanayo nabad ku soo toosayo oo wax walba haarhaynin waxaan isleeyahay nabadda in la gaarana wax weyn baa yaa qabsoomay xagga marka la xuquuqul insaanka oo meel shacabka xuquuqdiisa lagu tuman jiray oo anagu markaan meesha imanaynay 5,000 ilaa 7,000 baa hal jeel ku xidhnayd oo haramacadkii dhurwaaga la xidhay marka in jeelasha ay haawanayaan oo dadku aysan xuquuqdooda ka walba haarayn in lagu xadgudbo qofka naftiisa lagu xadgudbaynin la xidhaynin la jirdeelinin la dhibaatayninin waxaan isleeyahay wax weyn baa yaa laga qabtay haddii xataa incident uu dhaco xuquuqul insaanka la isweydiinayo oo markiiba la oranayo hala saxo la saxayo haddii qof shakhsi muwaadina dhibaato loo geysto la wax dhici karo incident iyo wada markiiba yani wax laga qabanay marka dhanka xuquuqul insaanka la eego waxaan isleeyahay wax weyn baa laga qabtay laakiin taasoo kale Dr. Hussein doodaha ka dhacaya baraha bulshada iyo mujtamaca dhexdiisa markaad eegto bulshadu waxay cabasho ka qabtaa dad loo xidhay comment oo kale for example ay Facebook ku qoreen ama ma aragtay fikir ay social media ku dhiibteen oo ama cid ka qabaan ama ay qadiyad ka qabaan taasoo kale soo xuquuqul insaanka horumarka laga gaaray aad ma aragtay ka hadlaysid ismail kama yara hor imanayso hadda markaan eegno dowladda deegaanka Soomaalida waxaan leenahay siyaasad ah in zero political prisoner policy waa leenahay siyaasad ah in qofna aan loo xidhi karin aragtidiisa siyaasadeed okay si guud aragtidiisaba marka maanta aan kula hadlayo hal qof oo u xiran aragtidiisa ma jiro dowladda ama arrin siyaasad la xidhiidha ha ka yaamin eber يعني marka waxaan oran karaa xuquuqul insaanka aad baa yaa loo ilaaliyay xuquuqda qofka inuu aragtidiisa dhiibto inuu si xor ah u hadlo inuu si xor ah isu abaabulo oo mataqaanaa siyaasadiisa iyo aragtidiisa uu sheegto waxaan isleeyahay wax weyn baa yaa laga qabtay marka la eego dhanka tan ka qiyaas qaadanay dhanka horumarkana deegaan wax la taaban karo laga qabanin buu ahaa qarni ku dhawaad marka in wax weyn oo wax ku oola ayaa sector walba oo aad taabato yaa laga qabtay marka haddii aad ka qiyaas qaadato arrimahaas oo dhan dhankii dhaqaalihii koboc aad u ballaaran ayaa jira isagana oo aad ka garan karto isbeddelka ka jira magaalooyinka waaweyn oo kale jigjig oo kale iyo markaad eegto yani ka jira beeraha oo kale haddaad soo qaadato wax soo saarkii oo maaragtay awal waxaan ka hadlaynaa 7 milyan oo kintaal baa lasoo saari jiray hadda sanadka waxaa qorshaysan 45 ilaa 46 milyan oo kintaal in lasoo saaro oo dalagyo kala duwan ah inay deegaanka ka soo baxdo waxaa laga hadlayaa 420 warshadood ka badan baa kusoo biiray isbeddelka kadib deegaanka xagga wax soo saarka warshadaha oo kale markaad eegto adeegyadii shacabka la siinayay bulshada la siinayna way saasoo kale u wadaa 3 jibaar iyo 4 jibaar yani meelaha qaarkoodna 200 oo percent bay maartay ay kordheen joolan hadda soo qaato isbitaalada kale 9 hospital baan ugu nimid waxa hadda ka jira dhowr iyo 10 la dhameeyay iyo dhowr iyo 10 socota 30 hospital baan ka hadlaynaa muddo yani 6 sano 7 sano marka shay kasta soo qaato waa intaas 700 oo iskuul baa la dhisay ku dhawaad 400 oo ceel baa la qoday dhowr iyo 10 ilaa 20 ku dhawaad biyo xireenaa la sameeyey daamiska waxa loo yaqaan oo ay ka cabayaan dadkii iyo xoolihiiba magaalooyin 20 ku dhow yaa la biyo la geliyay magaalooyinka waaweyn goday iyo jigjiga iyo dhagax buur iyo wardheer iyo saa loo yani loo mataqaanaa loo tilmaami karo magacooda la sheegi karo marka laga qiyaas qaato dhanka horumarkana waxaan isleeyahay isbeddel weyn baa ka dhacay taas macnaheedu ma aha in anagu aanu hogaamin ahaan ku qanacsanahay oo leenahay shacabka baahidiisii baad yaan dhamaynay kow ma joogto taas marka la eego aragtida aan ka leenahay in dadkan la gaarsiiyo horumar dhaba oo noloshooda wax ka bedela
waxaan leeyahay kow ma joogto waa bilow waxay u baahan tahay shaqo intan laba jibaarkeeda in la qabto waxay u baahan tahay in la maalgeliyo aqoonta iyo xirfadaha dhalinyarada iyo si guud waxay u baahan tahay bulshada waxay u baahan tahay maalgashi badan oo yimaado oo dhankii private sectorkii ah inuu yimaado loo baahan yahay dhulkeenu uu dihin yahay oo xagga beeraha marka la eego 10 milyan oo hektar baa la beeri karaa waxaan ka hadlaynayna waa 1 milyan oo hektar in la beeray marka dee fari kama qondo dhanka marka laga eego lafteeda dahabkii baa jira oo baahan in la soo saaro gaaskii iyo waxaa jira oilkii oo baahan in hadda bilow ah hawshiisu ay tahay marka fari kama qondaan leeyahay marka la eego aragtida fog ee aan ka leenahay in dadkan noloshiisa wax laga bedelo waxaad hadal qaaday inuu jiro soo kabasho dhaqaale iyo furfurnaan dhaqaale iyo maaragtay environment dhiirigelin u ah maaragtay maalgashadayaasha taa markaan sii raacno doctor dhowaan waxaa soo shaacbaxday oo prime ministerku ku dhawaaqay in sikadiisa warshad gaaska soo saaraysa maaragtay LNG-ga deegaanka laga furi doono cidna kama warqabin maaragtay warshada dhismaheega iyo hanaqaadkeega wuxuunbaa lagu war helay sida prime minister kuba sheegay in maaragtay warshada la daahfurayo tu kaloo lamidana la dhisayo lana daahfurayba markii dambe oo already productionkii uu socdaba sidoo kale waxaa dhowaan laga dhagax dhigay deegaanka warshad fertilizerska soo saaraysa lacag $10 bilyan ku dhow ayaa investment intaa leeg baa maaragtay ku baxaysa saliidda shidaalka iyo bacrimiyaasha waa lacag iyo investment aan taariikhda deegaanka horay loo maqal in capitalka intaa leeg lagu maalgeliyo doodo badan baa ka dhashay aragtida dadka dowladda aan la aragtida ahayn waxay leedahay deegaanku waxba kuma leh wuxuunbaa laga maamulay heer federaal deegaanka iyo dadku uu ku qatan yahay khayraadkii maaragtay deegaanka ayaa maaragtay la maamulayaa inagoo ka maqan miiska maamulkeega iyo ma aragtay ma jirto kuwoto iyo maaragtay nidaam lagu qaybsado khayraadka oo loo maray maaragtay aragtiyahaas maxaa uga jawaabaysaa doctor maxamedow waa saad sheegtay oo dhaqaale $10 bilyan ahbaa ayaa lagu maalgelinayaa warshadahaas iyo warshada bacriminta warshada gaaska iyo warshada shidaalka soo maarta sifaynaysa iyo mashaariic la xiriira kuwaas oo xagga tamarta ah horta waa in hoosta laga xariiqo in dowladda deegaanka Soomaalidu maanta ay gaadho heer ay xaqiijisay amnigeedii ay xaqiijisay jawi iyo duruuf saamixi karta in lacag intaa la eg la geliyo oo maalgashi ah waxaan is leeyahay waa arrin u baahan lafteedu qofkiin hoos isweydiiyo la aqoonsado la garowsado la yidhaahdo meeshii waa meel soo jiidanaysa maalgashi aad u culus waa meel u furan ganacsi iyo koboc dhaqaale taas waa saas waayo dee shirkadahan ajnabiga ah iyo dadkan maalgashiga sameynaya oo uu ka mid yahay Dangote oo dee dadka adduunka ugu taajirsan ah dhaqaalihiisa intaa la eg muuna meel iska geliyeen hadduuna rajo weyn arag marka horta taas horta waa in hoosta ka xariiqno deegaankaasi in uu yahay meel ay rajo weyn ka jirto oo la maal gashan karo oo u furan ganacsi iyo dhaqaale iyo business inuu yahay inay fariintaas horta ay meesha ku duugan tahay in la isla garto wey waa qodobka labaad waxa weeye in dalka Ethiopia uu isbedelay oo meeshii laga heli jiray shidaalka deegaanka Soomaalida yaa la qaadaya oo meelo kale lagu soo sifaynaya oo tala laguma laha in iyaduna ay isbedeshay oo dhaqaalaha intaa la eg uu galayo jeexdin iyo goday iyo goobaha la midka LLA iyo uu galayo marka sidaad sheegtay hadda warshado badan baa la dhagax dhigay xagee laga dhex dhigay goday waxaa laga dhex dhigay tii bacriminta iyo tii sifaynaysay oilka yaa la dhex dhigay kaalub waxaa la dhex dhigay tii sifaynaysay shidaalka iyo tii tamarta mashaariic
intaa la eg ee halkaa la dhagax dhigay dee waxay ku sheegaysaa ee halkaa laga dhisayo warshadaha intaa la eg ee bibeskood halkaa laga dhisayo ee halkaa lagu sifaynayo khayraadkaagii dee waxay ku sheegaysaa in Etoobiyada maanta iyo xisbiga talada haya iyo ra'iisul wasaaraha iyo hogaaminta kaleba ay aqoonsadeen dadkan la soo xaqiray ee laga ilaalinayay in maalgashi lagu sameeyo dhulkiisa in maalgashi intaa lagu sameeyo inay xaq u leeyihiin inay mudan yihiin waana arrin uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaruhu oo la gabanayay ma ahayn kaas soo taagan buu lahaa ummadii Soomaaliyeed maanta ma aha in ayagu kali ay faa'iideen ee waxay gaareen heer ummadaha kale ee dalka iyo geeska Afrikaba qorax soo baxday bay noqonayaan deegaanka Soomaaliyeed waa runtii weey marka taana in hoos laga xariiqo in Etoobiyada cusub iyo hogaaminta cusub iyo xisbiga talada haya xisbiga Barwaaqo iyo ra'iisul wasaaruhu shakhsiyan in ay u baahan tahay in lagu bogaadiyo waxa ku soo haray khayraadka laftiisa sidii looga faa'iideysanay qaybsigiisii waxa weeyaan horta Ethiopia marka la leeyahay de waa dalkii aan ka tirsanayn weey waa dalkii aan wax ka hagaynay weey ka hogaaminay weey marka in taladii maadaama wax ku leenahay miiskii aan fadhino horta Ethiopia laga sheekaynayo Ethiopia kale ma waa anagi weey marka aan saaleeyahay waliba waxa xusid mudan Ethiopiyadii hore ee Abyssinia loo aanin jiray ee la leeyahay yaani waa Ethiopia qalaad dadkeena ay u yaqaaneen anaga kaliya ma marka la eego southko dhan dadkan jooga xagga koonfurta dhan Soomaalida iyo Sidaamada iyo Cafarta iyo Oromada marka la eego way jiri jireen oo jabhado ku fikirka ka duulay oo la dagaalamay ayaa jiri jiray laakiin Oromadii Sidaamadii Cafartii Soomaalidii Harridii shucuubta koonfureed oo dhan marka si guud loo yiraahdo oo dhan waa shucuubta hadda lagu tuhmayo talada wadanka inay hayaan marka Ethiopia horta saa isu bedeshay marka isbedelka guud ee dhacay wadanka ee ka shaqeynaysa waa isbedelka saamaxay in dhaqaale inta leeg deegaanka Soomaalida la galiyo marka qaybna aan ka nahay taladeedii weey marka qaybsigeedii de taladeedii ba wax ku leedahay oo waxa taas waa mid ina taladii wax ku leedahay oo miiska aad fadhidid oo hogaaminta u sareysay sida de xisbigii talada hayay gurigii looga talinayay headquarterki inuu qof Soomaali maanta hogaamin Soomaaliyeed u fadhiyo oo leh awood ra'iisul wasaare ku xigeen u fadhiyo oo xisbigii lagu leeyahay 22 xubnood oo golaha dhaxa oo guddiga fulinta 4 xubnood lagu leeyahay talada hayay wadanka inta loo fahmo wasiirro lagu leeyahay oo state ministers lagu leeyahay macnaheedu intaasaan ku qanacsanahay ba in la raadiyo door kan mid ka sii balaaran oo kii aanu qalanay waxa keenaya in miiska la fadhiyo dooda lagu jiro ayaa keenaysa taas waa mid ta kale shuruuc ba yaa wax lagu qaybsadaa shuruuc wadan lagu hagaa shuruucdu waxay si cad u tilmaamaysaa in khayraadkii dabiiciga ah ee hal deegaan laga helo in 50% uu deegaankaas lagu celinayo 50% dalka lagu celinayo dawladda federaalka lagu celinayo si ay dalkii ugu qaybiso taalafteedu waa arrin ku timid doodo iyo halgan ku timid weeye waxa doodaas ay ka dhacday golaha federationka ee dalka aqalka sare ee baarlamaanka ay ka dhacday laga dooday la isla soo afkartay go'aankiisna lagu qaatay waraaq ka soo baxday aqalka sare oo qeexaysa way jirtaa shacabku og yahay waa la soo galiyay media-ga waa la soo galiyay si fiican bay u sharaxaysaa in 50% khayraadkaas uu galay deegaanka just for the record waxaana muhiim ah in la ogaado dalka laftiisu hadda miisaaniyad baan nagu helnaa dawladda Soomaaliyeed miisaaniyad bay heshaa de miisaaniyadaasi waa miisaaniyad wadanka laga soo ururiyo oo khayraadka wadanka ya khayraadka dabiiciga wadanka qaar badan dakhli laga dhaliyay baa inaga leen isiyaa marka maanta hadii inagana shida la soo saaro oo 50% deegaanka lagu soo celiyo 50 dalka lagu celiyo si uu ugu qaybiyo intii kale sida inaguba khayraadkii dalka laga soo ururiyay deegaanada kale inaga leeno soo gaarsiinayo wax dhibaato ah oo ku jaban malaha isleeyahay arrinta la xiriidha wasiir talada xagga sare in Soomaalidu maanta qayb ka tahay in Soomaalida iyo deegaanka Soomaalidu aanu wali wada helin kuwoto u qalanta ama kuwotadii xaq u lahaa
heer federaal ma ku raacsantihiin dadka idinka aragtida duwan mise waxaad qabtaan in Soomaalidu wixii ay Itoobiya xaq ugu lahayd maamul iyo maamuus intaba inay haysato oo halka ay ku joogto waxaan aaminsanahay in isbeddelka yimid ee dhacay 7 sano ka hor ee xisbigan barwaaqo talada kula wareegay in uu saamaxay in Soomaalidu ay ka muuqato dalka Itoobiya dhan walbaba hadday noqoto dhanka siyaasadii inaan ka muuqanno mansabyo siyaasadeed oo hadda ka hor aan haysanin inaan haysanno ka qayb qaadashada Soomaalida ee dhaqaalaha markaad eegto bilow fiican baa jira markaad eegto canshuur bixiyaasha dalka oo dhaqaale badan canshuur badan dalka bixiyay ee ra'iisul wasaaruhu uu aqoonsanayay maalinkii dhaweyd ee Soomaali baa ku jirta yani waxay ku tusaa in ka qaybgalka dhaqaaluhuna uu bilow fiican u jiro marka la eego ciidamada waa meelaha aan ku liidano weeyaan laakiin generaalkii labaad ba hadda yaa xidigaha loo xiray yani isbedel wanaagsan baa jira meelaha uusan isbedel ka jirin ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhan dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ka qaybgalka militariga ha noqoto iyo hay'adaha dawladda ha noqoto taasina dariiqii lagu gaari lahaa yaan haynaa baan leeyahay waxaan nahay qowmiyadda saddexaad baan nahay dhulka ugu ballaaran baan haysanaa waxbaan ka noqon karaa sida aynu waddankan wax ugu qabsan lahayn aynu taladiisa wax ugu yeelan lahayn aynu u hogaamin lahayn aan u jeedsanno dariiqaasaan haynaa dariiqaas waa dariiq xikmadaysan oo isbeddelka aan kuu sheegayna keenay kuwa ka waaweyna keeni doona hadduu lahaydmo aan ku sii soconno Dr. Xuseen adeeg bixinta heer federaal iyo heer deegaan hay'adaha federaalka ee adeeg bixiyaasha haddii ay tahay adeegyada telefoonka haddii ay tahay adeegyada laydhka haddii ay tahay adeegyada kala duwan ee heer federaal ee deegaanka adeeg bixiyaasha dadku waxay ka cabanayaan oo dad badani dooda ka keenayaan iyadoo luuqadda guud ee dalka Itoobiya lagaga hadlaa ay tahay luuqadda Amxaariga haddana dad badan oo waayeel iyo dad kaleba u badan oo deegaanka ah oo xaq u leh adeegyada waxaa marmarka qaar kaga horgudban caqabad luuqadeed oo adeeg bixiyihii loo adeegyahay inay sahleen arrintaa laftigeega ma dareensan tahay hogaaminta si guud particularly adigu in ay tahay in meel wax laga bedeli karo oo in wax ka qabad mudan dhowr qodob baan taa ka odhan kow horta hay'adahan federaalku uu gacanta ku hayo sidaad sheegaysid oo kooban marka adeeg bixinta guud ee deegaanka la eego ileen adeeg bixinadaas waa adeeg bixino dhowr oo la tirin karo weeye laakiin adeegyo tobanaan iyo boqolaal la bixiyaa dowladda Soomaalidu bixiso af Soomaali ku baxa luqadda dowladda Soomaalida laga shaqeeyo officialkii waa Soomaali weeye ta wax lagu barto waa Soomaali halka ay dhig dadaaladii aan ku sheegay siyaasadeed iyo xikmadihii aan ku sheegay waxay dhaliyeen in luqadda Soomaaliga lagu daro 5 luqadood ee dalka lagaga arriminayo ee lagaga shaqeynayo xisbiga barwaaqa taladiis qorshihiisu waa taa weeyaan hirgelinteedii intee qaadanaysa iyo waxan iyagu waa laga yaabaa inuu jiitan ka jiri karo taana halka ay dhig oo luqadda Soomaaliga lafteedii in la kobciyo oo kor loo qaado oo ay noqoto luqad qaran shaqadeedii halkaasay maraysaa oo waa la isla qaatay xisbi ahaan waana la riixayaa in taas waxay keenaysaa in waraaqihii iyo foomamkii iyo e-governance-kii iyo official documents-kii in Soomaali isna loo bedelo taas waa halka ay dhigayadana ta kale waxa weeyaan Soomaalida horta way ka shaqaysaa hay'adahan way ku yar yihiin waa la odhan karaa laakiin way ka shaqeeyaan waxaa kale oo jira dadaal dhalinyarada Soomaaliyeed ay wado oo ah in ay galaan hay'adahan galaan maalin kastana waxba isbedela hadda bishii hore tusaalan ku soo qaaday wax isbedelay laydhka hay'adda adeegga laydhka bixisa qof deegaanka Soomaalida ka soo jeeda oo Soomaali ah oo af Soomaali ku hadlaya ayaa loo dhiibay oo hadda maamula bangiyada way ka shaqeeyaan hay'adaha kale ee mataqaanay heer federaal way ka shaqeeyaan taana dadaalkeedu wuu socdaa waxaa kale oo jira oo ay tahay in shacabkan ku baraarujinaya in markii inaga la yiraahdo warbal dad dhalinyaro Soomaaliyeed ha u tartanto shaqooyinkan oo ha gasho in culays
uu yimaado ah in dhallinyaradeennu ay door bidayaan shaqooyinka deegaanka okay oo ah hay'ad walbaba hay'adda horumarinta iyo kuwa adeeg kaliya maaha Okay. hay'adihii amniga anigaa kula hadlaya 40 baan intaan kaxeeyey yaan air forciga xarunta air forciga ciidamada cirka Ethiopia geeyey oo baylodo iyo injineero iyo technicians inay noqdaan u geeyeen okay hal wiil baa ku haray marka ma compensation ka cabanaya waxay ka cabanayaan mararka qaarkood Mushaaraadkii. waxay ka cabanayaan waxyaabo aan jirin okay tusaale ahaan dhallinyaradaasoo kale waxay qaar badan ay uga yimaadeen xog khaldan oo beena oo dagaalka Suudaan baa la geenayaa iyo waxyaabo aan jirin marka waxaa loo baahan yahay in dhacdadii hadda waxaa jirtay tusaale ahaan ka dhacday airportka jigjiga xilli hore oo nasiib darro ahayd oo xildhibaan gabadh Soomaaliyeed Allah yarxamo Soomaaliyeed ku nafweeyay ilaahu naxariiso dooda iyo hadal iyo halgan baan galnay 200 wiil oo federal booliiska gasha oo xarumahan federaalku hadda uu gacanta ku hayo sida airportka laftiisa airportka goday ka jigjiga ka qabr dahar iyo meelaha kale xarumaha muhiimka ah heer federaal lagu ilaaliyo bal ka shaqeeya kana la yiri waa soo dhajinay waxay dhallinyaradeen door bideen ciidanka deegaanka inay qortaan waxaan leenahay fursaddan ka faa'iidaystay war isku heli mayno dhinacna inaan ka calaacalo dhahno adeegyadii waan ka baxnaqano waxaan jeclaan lahaa wiil Soomaaliyeed inuu siiyo dhinacna ma galayo labada arrimood isku ma helayno marka arintaas oo kale dawladdu siyaasad ma ka leedahay bal arintaas sidii loo furdaamin lahaa way jiraan oo kow horta doodan ah in dadka Soomaaliyeed ay Addis Ababa tagaan ka muuqdaan oo wadanka hay'adihiisa oo dhan ka muuqdaan kuwa ganacsi iyo kuwa siyaasadeed iyo kuwa military iyo hay'adahan dawliga iyo wasaaradaha federaalka ee Addis Ababa horta baraarujintii iyo dhiirigelintii way jiraan okay talaabooyin yar yar oo kooban oo aan qaadno oo dhiirigelin ah oo saamaxaya bal in dadka halka lagu hayo Addis Ababa way jiraan iyaguna oo leenayna yani oo tala bixin iyo mataqaanay in halkaas ay joogaan oo ay kobcaan oo ay koraan oo ay yeeshaan dulqaadka ay leeyihiin qoomiyadaha kale ay leeyihiin xaaladaha iyo duruufaha dalka ka jira doctor waxa jira sentiment in deegaanka Soomaalidu ay gumaysi ku jiraan oo sentiment noocaas oo kala ah dad badan oo muddo kale oo mas'uuliyiin ay marmarka qaar miiska soo dhigaan arintaas sidii dawladdu u aragtaa jawaab celintiinu maxay tahay rationalka iyo aqliyadda ka dambaysa arintaasina maxay kula tahay deegaankeenu duruufo aad badan buu soo maray duruufo tilmaamaya in dadkan ay soo mareen xaqiraad iyo dhibaatooyin oo xaqiiqiyan aan la dafiri karin bay soo mareen shacabkeennu iyo waxgaradkeennu iyo aabayaasheenna halgamo xalaal ah oo nadiif ah oo cadaadiskii iyo dhibaatooyinkii dadkan lagu hayay ay kaga soo horjeedeen ayay soo mareen ururo badanna way samaysteen oo ay ugu dambeysay ONLF halganadaas oo dhan waxaan qirayaa inay yihiin halgamo xalaal ahaa oo dadku ay kaga hortegayeen cadaadiska iyo dhibaatooyinka lagu hayay oo ay iskaga difaacayeen xuquuqul insaanka lagu tumanayay horumarkii cunaha laga hayay ee loo diidanaa dadkan inuu horumaro inuu wax barto inuu meel gaaro inuu noolaado taas halkaas markaan saa u dhigno waxaa xaqiiq ah in maanta fursadda ay jirta ay tahay fursad innaga kaligeen ma ahe shucuubtii Ethiopia Oromada iyo Sidaamada iyo Cafarta iyo Harrida iyo qoomiyadii kale badnaaba ay u wareegeen in dalkan aan laga cararin ee lagu cararo oo la maamulo oo la hogaamiyo oo talada wax lagu yeesho oo wixii xuquuq ah iyo wixii horumar ah lagu raadiyo hab dastuuri ah iyo hab ilbaxnimo iyo xikmadaysan ah oo aan dhaawac u keenin shacabkeenna qarniga ku dhawaadka ah dhibaatada lagu soo hayay annagu xikmadda aan ku shaqeyn xikmadda weeyaan ma aha xikmad deegaankeenna hadda dan ugu jirto in laga faquuqo
dalkan in meel kale loo cararo waxa weeyaan waxaa jira dariiqaas cad oo annaga noo qeexan hogaamin ahaan oo aan dadka ku hagayn oo ah dalkan in aan xuquuqdeenna iyo xaqeenna iyo horumarkeenna iyo inaan ku ilaashanno innaga oo ka faa'iidaysanayna shuruucda iyo nidaamka dawliga ah ee jira oo ah nidaam federalism ah oo saamaxaya in talada deegaankaagana aad adigu lahaato dadkaaga adigu aad siyaasiyiin u taliso hogaamiso qorshahaaga horumarineed aad adigu aad dejisato amnigaaga adigu aad ilaashato at the same time taladii waddankana wax ku yeelato waxaan is leeyahay waa waxa keenay maanta in xigmaddaas iyo taladaas waa ta keentay maanta in aan u madax bannaanaano siyaasadda iyo hagista deegaanka marka taas ayaan is leeyahay way mudan tahay maanta marka la eego duruufaha dalkeena soo maray iyo dadkeena soo maray waxaan is leeyahay xikmadda ay tahay maanta in lagu shaqeeyo waa xikmaddaas weeyaan xikmad kale meesha ma taalla hadda waxaa jirtaa dhaliil dowladda loo soo jeedinayo oo inaanay ururin codadka kala duwan ee soomaalida oo aanay u furin masrax codadkaa laga wada maqli karo spacekii dowladda ma furin baa laleeyahay doodaha qaar waxay leeyihiin in dowladda laftigeegu ay qaybinayso xisbiyada qaar oo NLF oo kale inay laba u kala jabto ay dowladda door ku leedahay taasina aanay interestkii guud ee soomaalida iyo sawirkii guud iyo codkii ahayd inuu midaysnaado aan meesha ka saarayo marka ma is leedahay door ayay dowladdu ku leedahay in la ururiyo codadka soomaalida ee kala duwan oo stands kumida laga qaato qadiyadaha waaweyn waxyaabaha domestic aanay lagu kala duwanaado inay caadi tahay ixtiraam iyo walaalnimo iyo isqadarin lagu wada joogo laakiin qadiyadaha waaweyn aragtiis kumid ah oo isqancis ku saabsan waa su'aal fiican weeye laakiin jawaabteeda kooban waxaa weeye meesha aan anagu hadda aadnay iyo dariiq aan hayno waa exactly dariiqii lagu helay hal cod oo Soomaaliyeed waa aragtidii aan ku bilaabay interviewga ee ahayd aragti midaysan oo Soomaaliyeed oo keenaysa in deegaankeenana si fiican loo maamulo loo hogaamiyo talo la wada leeyahay lagu hogaamiyo nolosha dadka wax lagaga bedelo oo tan keentay natiijada ah taas waxaan isleeyahay waa waxa keenayba ee lagu gaaray maanta waa codka midaysan ee Soomaaliyeed weeyaan marka horka codku uu midaysan yahay codkii Soomaaliyeed uu midaysan yahay hal cod haddaan ahayn natiijada inta leeg lama gaareen dalkan wax lama qabsadeen marka horta codku midaysan yahay markaan u soo noqdo ururada kale ee siyaasadda horta saaxada siyaasadda waa la furfuray ururada way yimaadeen mucaaradkii iyo activistiga iyo waxaan oo dhan waa xor inay is abaabulaan inay taladooda soo bandhigaan inay qorshahooda ummadda u soo bandhigaan taas xorriyadda way jirtaa oo xaqiiqiyan sawaxanka media ka jira iyo doqodaha ka jira lagu garanayaa inay taas jiraan oo cid walba ay xor u tahay waxaa kaloo lagu garanayaa in maanta mucaaradkii iyo dadyow kala duwan nidaamkii xisbigii iyo xukuumaddiiba ay soo galeen tusaalahaan haddaad soo qaadato xukuumadda oo kale dee waxaa mucaaradka laftiisa ururka on laftiisa ayaa wasiirro ku leh heer gobolada arto way ku leeyihiin heer degmo way ku leeyihiin maamul magaalooyinkii ku leeyihiin marka intii aad ogoleedeen baad wadataan baa leeyahay waxa dee qofaan ku ogoleen ma wadan kartid waa laakiin waxa weeye laakiin waxa xaqiiqa ururkaas oo kale nidaam dawli ah yaa ka jira dalka nidaam xisbiyan way ka jiraan nidaamka xisbiga ah dalku waxaa xisbiyada maamula waa hay'adda doorashada ee dalka ee qaranka iyadoo hadda ururka ay aqoonsatay sharciga ahaa wada shaqayn wanaagsan ayaan leenahay waxaan isleeyahay qayb uu ka yahay codka midaysan aan kuu sheegayo waa aniga kula wasiirri iyo maamulka way ka qayb qaateen heerar kala duwan heer gobol iyo heer degmo ilaa iyo heerarka hoose marka waxaan isleeyahay codka midaysan way yihiin laakiin waxa dhabta waxaa weeye waxa Soomaali
lagu midayn karo waa fikir iyo cod Soomaaliyeed weey okay cod Soomaaliyeed waxaa noqon kara waa nidaam iyo qaab dhismeed ay Soomaali u dhan tahay oo ay ku kalsoon tahay oo iska wada arkayso oo waxaan in la wada leeyahay deegaankan in la wada leeyahay aaminsan waxaan ula jeedaa in cududda la isu keeno in hadda tusaale ahaan soo qaato xukuumadda oo kale anagoo codkaasaan fahanay codka Soomaaliyeed inuu yahay in la isu keeno in wax la wada lahaado okay in mucaaradkiin ma wada labaad u jeedaa wallahi waxaan u jeedaa anagu codkan midaysan ee Soomaaliyeed ee aan abuuray ayaa keenay in siyaasad loo dhan yahay oo xasiloon noqoto in amni baahsan la helo oo deegaanka dhan uu deegaanka u amni badan noqdo in horumar bilow ah oo la taaban karo la gaaro in xuquuqdii la ilaaliyo in dhaqankii la ilaaliyo in diintii la ilaaliyo in dhulkii la ilaaliyo in dalkii Ethiopia tala lagu yeesho codkaas midaysan ee Soomaaliyeed baa keenay cod kasta oo ka duwan ka oo ka hoos dhaca kaas oo aan ahayn mid Soomaaliyeed ma shaqeynayo waxaan isleeyahay taas waa in xisbiyada kale ku shaqeynaya magacyada qabiilka waa inay taas ay ka taxadaraan hadday rabaan inay saaxada siyaasadeed ay wax ku yeeshaan oo saameyn ay yeeshaan waa in sida aad sheegtay ay cod Soomaaliyeed noqdaan cod Soomaaliyeedna ma noqon kartid haddaadan si xaqiiqa aadan isugu keenin Soomaali oo aynan codkaaga wax ku darsanin ma noqon kartid cod Soomaaliyeed ma noqon kartid xisbi kasta oo xisbiyada nala tartamaya haddii ayna noqonin xisbiya Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay oo aragti Soomaaliyeed leh ma aaminsan inay hana qaadayaan ma aaminsan inay dadkan xuso kordhinayaan waxaan isleeyahay sababta keenaysa mar walbaba in codadka qaarkood ay fadhiid noqdaan waxay ka hoos marayaan aragtida guud ee Soomaaliyeed ay ka hoos marayaan ee aan u danaynaynin mooyaale ilaa iyo mataqaanay guradhaamoole ilaa iyo feerfeer aan danahooda ka shaqeynin oo aan cod u ahaanin haddaadan cod u ahayn feerfeer ilaa mooyaale ilaa garbaciise waxaan isleeyahay way ku adkaanaysaa inaad tartan la gasho xisbiga talada hadda haya ee xisbiga barwaaqa oo anagu aan hogaamintiis ka midnahay oo ku shaqeynaya tala Soomaaliyeed iyo aragti Soomaaliyeed ku shaqeynaya dhawaan waxay dawladdu qaadatay go'aan lagu redistribute gareynayo maamul magaalooyinkii gobolladii iyo degmooyinkii si kala duwan bay dadku uga falcelinayaan meelo badan oo ay ahayd in ay u qalmaan oo buuxiyey shuruudaha gobolnimo ama degmanimo inaan la siin cabasho abaa taala markaad dib u eegtid sida loo qaybiyey degmooyinka iyo gobollada ma sidii ugu feersanayd ee ay ka tegi weydaba mise xal baad u aragteen waxaan isleeyahay marka la eego qaab dhismeedka hadda la soo kordhiyey sidii ugu cadaaladda ugu dhaweyd weeyaan tusaalayaal soo qaado degmo 14 degmaa la sameeyey tusaale ahaan 14 degmo markaad eegto meeshay ku teedsan yihiin waxaa kuu soo baxaysa inay yihiin 14 koodu bulshooyinka kuwa la odhan karo miiska mayna fadhiin markaas talada go'aanka lagu hayo of course hogaamin Soomaaliyeed oo iyaga matalaya ya deegaanka talisa laakiin Soomaalida si ay u taqaanay bulshada ah marka la eego dadkaas dad la odhan karo hadda taladii bay gacanta ku hayeen oo iyaga meesha geystay ma aha degmooyinka dhanka soo qaadato maamul magaalooyinkana sidaas oo kale markaad eegto bal waxaad soo qaataa maamul magaalada hadda u dambeysay Bariisle ee la siiyey beelaha ay Soomaalidu faquuqdo cadaalad darrada ay ku faquuqdo beesha in la siiyo waxay ka timid kow in xaq u leeyihiin labo oo in garawshi ay tahay Soomaalidu in ay meel ay joogto cadaalad darro ay kula dhaqanto dadkaas in loo fikirayo kuwa aan markaa lagu tuhmaynin talada iyo awoodda ayay tilmaamaysaa markaad eegto sida wax loo qaybiyey iyo dadka la gaarsiiyey oo ah dadkii la islahaa inta badan miiska ma fadhiyaan bulsho ahaan marka la eego dadka matalaya
waxaan la oran karaa waa wixii ugu cadaaladsanaa ee Soomaali qaab dhismeed ay dowladda deegaanka Soomaalida la sameeyo iyo Soomaali meel ay joogtaba yaan isleeyahay dadka ra'yul caamka hadda markaad eegtana falcelinta markaad eegtana ma jiro cid leh qaab dhismeedka la sameeyay ee gobolada leh ee degmooyinka leh ee maalmagaalooyinka leh waa qaab dhismeed cadaalad darro ah cid leh way yartahay waxaa loo badan yahay in la leeyahay war qaab dhismeedkan la soo kordhiyay cadaaladdu ku salaysan yahay waa tallaabo hore loo qaaday oo wanaagsan laakiin anna maalmagaalo aan helo anna gobol aan helo taasna waxa weeyaan qaab dhismeedku dee adeeg in lagu bixiyaa loogu talagalay waxa weeyaan waa laga yaabaa inay dhici karto meelo laga ilduufay waa laga yaabaa inay dhici karto meelahaana berri bay imanayaan marba haddii cadaalad intaa la eg yani loo dhawaaday in cadaalad la sameeyo oo dariiqii saxda ah la hayo dee berrina maxaa keenaya markaa in bulshooyinka aan waxhelin inay waxhelaan ta kale waxaa jirta fikir meesha in laga saaro u baahan oo ah dadku inay moodayaan in qaab dhismeedin loo sameeyey dad gooni ah waana tan marmarka qaarkood xasaasiyadaha iyo caatifadaha dhalinaysa ah qabiil hebel iyo jilib hebel inuu helo iyo ahayd in anaga loo sii kordhiyo ahayd taas waxaan isleeyahay waa fikir khaldan waxaanan caddaynayaa in dhanka aanna u soconin oo ay hadda doodaha hadda socda ee hogaaminta ka dhex socda iyo xukuumadda ay tahay sidaynu deegaanka Soomaalida uga yaraynaa saamaynta qabiilka sidaynu uga yaraynaa maamulka iyo hogaaminta heerarkeeda kala duwan saamaynta qabiilka oo u baahan marka in go'aano qaarkood la qaato si dadku aysan moodin wixii soo kordhay inuu reer u soo kordhay oo magacaabista saamayn doonta oo saamayn doonta habka ay u falgalayaan qabiilka iyo dowladnimadu taas waxaan leeyahay doodo culus baa ka socda dadkana waxaan aaminsanahay in bulshada dhexdeena doodaha laftooda ay ka socdaan oo ah say u falgalayaan waayo haddii loo qaato in qaab dhismeedka la soo kordhiyo ay reer wax u soo kordhayaan dee dhibaatay noqonaysaa nidaamkii waxay dhaawacaysaa dowladnimay dhaawacaysaa marka waxaad leedahay xulkii ugu dambeeyey maahay waa xal wixii dhimanna waa la sixi doonaa go'aankii qaab dhismeedku cadaalad buu ku salaysnaa ilduuf wuu jiri karaa ilduufyadan waxaan isleeyahay mar kasta waxaa la haystaa fursad saamaxaysa in maanta haddii cadaalad la sameeyo intaasoo bulsho oo aan filaynin oon miiska fadhiyin cadaalad loo sameeyey in berrina wixii khaldan la sixi karo ilduufka yaraysa la sixi karo waxaan aaminsan si mataqaana kalsooni baan ku qabaa laakiin waxaa more important oo arrin muhiim ah tahay hoos in laga xariiqo in qaab dhismeedka kuwa hadda la sameeyey iyo kuwa sii jirayba in hoos loo eegayo doodaasina socoto bulshada dhexdeeda iyo hogaaminta dhexdeedaba war sidee u falgalayaan qabiilka iyo dowladnimadu waayo dhaawac weyn ba ayaa ku dhacay haddii lagu saleeyo qaab dhismeedka iyo magacaabista qabiil lagu saleeyo dhaawac weyn baa ku dhacay dowladnimada marka taas waxaan leeyahay fikirkeedii iyo tashigeedii doodeedu bulshadana ka dhex socotaa dowladana ka dhex socotaa hogaamintana ka dhex socotaa waxaan rajaynayaa in dhanka la aadi doono ay noqon doonto dhan dadku ay u arkaan in waxa soo kordhaya dowladnimadii uun usoo mataqaanaa ay u soo kordhayaan aynan qabiil u soo kordhayn waxa ka jira deegaanka environment iyo climate cimilo iyo dadiila leh oo xagga dhaqaalaha ah dadka deegaanka ee qurba joogta iyo miida iyo maskaxda iyo maalka Soomaalida ee gurguur ku daashaday waxa hadda ay isha ku hayaan in deegaanka ay maalgashadaan iyagoo daba socda runtii de maalgashiyada waaweyn ee hadda ka qabsoomay iyo xasiloonida iyo deganaanshaha deegaanka ka jira arrintaas dowladdu qorshe noocee bay ka leedahay soo jiidashada maalgashiga gaar ahaan maalgashadayaasha Soomaalida ah maxaase u diyaarsan dadka danaynaya inay deegaanka maalgashadaan maalgashi waan soo dhaweynaynaa dadka waxaa u diyaarsan nabad la isku halayn karo waxaa u diyaarsan siyaasad degan oo la isku halayn karo oo aaminsan maalgashigu inuu wax weyn u soo kordhinayo dowladnimada iyo dhaqaalaha waxaa u diyaarsan dhul beereedyo ay ka faa'iideysan karaan iyo webiyo durduraya oo dhankii beeraha ay wax soo saarka ah
waxaa u diyaarsan sektarkii xoolaha oo dee ah lafdhabarkii dhaqaalaha ee Soomaali meel joogtaba in laga ganacsado warshadayntiisii iyo hawshiisiina ay barbar socoto iyadana ay furan tahay macdantii oo hadda aan shirkadda macdanta aan aasaasnay oo inay la shurakowdo ganacsatada iyo maalgashiyaasha deegaanka raba inay yimaadaan baa u diyaarsan waxaa u diyaarsan in laga faa'iideysto warshadaha waxaa jira dhulal diyaar ah oo ciddii maanta warshad keenaysa aanu u diyaarino oo biyo iyo leyd qaybna hadda ay socoto qaybaha kalena aan gelinayno bilaha soo socda hadduu ilaah yiraahdo yaa u diyaarsan oo sheedkii qofku inuu yimaado warshadiisii ku rakibto uun dhulkii lagu wareejinayo yaa u diyaarsan waxaa u diyaarsan in hay'adaha cadaaladda iyo hay'adaha kale ee khusayso iyo xafiiska maalgashiga iyo guddiga maalgashiga oo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka uu hago maadaama muhiimad aan siinayno in uu dadka soo dhaweeyo ilaaliyo shuruucdii u sharaxo fursadaha ka jira uu la wadaago marka sektaradaasna way furan yihiin fursadahaas way furan yihiin waxaan isleeyahay siyaasaddaas u furfuran maalgashiga iyo soo dhaweyntaasina waxaan isleeyahay waata keentay in bilaayin dollar lagula soo dhiirado deegaanka waxaan leeyahay Soomaalida iyo cid kasta oo rabto inay maalgashadana soo dhawaadaan leeyahay Dr. Xuseen anigu waan ka soo shaqeeyay sidaadoo kale development sectorka private sectorkana waan la soo shaqeeyay politicskana saaxiibo badan baan ku leeyahay waan fahmi karaa ma aragtay noloshiisa saarka ee isku aadan ee stableka ah ee dadka ka yimaada private sectorka ama development sectorka iyo nolosha ma aragtay gadgadoonka badan leh ee uncertainty-ka ee siyaasadda markaad backgroundkaagii hore ku noqotay iyo shaqooyinkii hore soo martay iyo shaqadaad hadda haysa ee siyaasadda ma is leedahay waa sacrifice haddii aad is leedahay waa sacrificena maxaad sacrifice-ka u samaynaysaa wallaahi waxaan is leeyahay in aad bulshadaada dib wax ugu celiso oo aad u adeegto waxaan is leeyahay waa fursad waa privilege marka anigu culayska shakhsi ay leedahay ma arko marka aad is leedahay go'aanada aad wax ka qaadanayso talooyinka aad wax ku leedahay waxay wax ka bedelayaan nolosha dadkaaga oo maanta ceel aad qodo oo intaasoo kun oo qof ay ka cabayaan oo maanta aad iskuul furto oo intaasoo arday ay tegayaan mustaqbalka ummaddan dadka anfici laha oo aad maalgashi intaa leeg la soo jiito oo nabad ay shacabkaaga ku seexdaan oo aad hay'adaha amniga ee hawsha ka shaqeynayay dhisitaankeeda aad tala ku leedahay waxaan is leeyahay marka la isku soo xooriyo waa fursad iyo privilege in ummadaada loo adeego saasaan arkaa anigu sacrifice-ka shakhsiga waxa soo gaaraya muhiim ah aad iyo aad baad mahadsan tahay saaxiibayaal xalqadeennana uu inoogu marti ahaa wasiirka madaxtooyada deegaanka Soomaalida halkaas ayaynu kasoo ganaadaynaa Dr. Xuseen aad baad mahadsan tahay waan kaaga mahadnaqayaa conversationka frankiga iyo waqtiga aad siisay buundo thank you so much Dr.